waa tuma Mama Samia sanadkii 2015 xilligii ololihii doorashada kooxdii ay Samia Suluhu Hassan ay horkacisay ee xisbiga CCM waxaa lagu soo bandhigay heeso ay qaadeen fanaaniin caan ah waxayna u tartamaysay xilka madaxweyne ku-xigeenka. Markii hore dad badan ayaa kaga baqayay dumar ahaan iyo sida haweenka loo xushmeeyo, balse si ay uga muuqato qof dadka u dhow waxay ka dalbatay in ay hal magac ugu yeeraan, waxay ahayd hooyo ama mama. Marka wixii ka dambeeyay ololihii doorasho wuxuu noqday mid dad badan soo jiitay si ka duwan musharaxiintii kale ee kasoo horjeeday. Dad badan oo reer Tanzanian ah magaca Samia Suluhu Hassan oo 60 sano jir ah wuxuu u noqday mid ay aad u garanayaan kadib markii loo magacaabay in ay u tartanto xilka madaxweyne ku-xigeenka sanadkii 2014 xilligii Tanzania ay hirgelinaysay dastuurka cusub. Kadib markii la dhameeyay la tashigii dadweynaha, Mama Samia waxaa loo xil saaray meelmarintiisa ee dhanka golaha baarlamaanka, maadaama baarlamaanka si toos ah oo TV-yada shacabka ugala hadlayay oo dad badan oo reer Tanzanian ah u hamuun qabeen in ay helaan xog dhammaystiran. Samia wajigeeda wuxuu noqday mid dastuurka ku lamaanan, waxaana meeshaasi kasoo muuqatay awoodeeda hogaamin. Taa waxay ahayd muuqaalkii shacabka ay ka haysteen. Sidoo kale gudaha baarlamaanka waxaa looga arkayay inay tahay qof degan xitaa marka ay doodo kululi jiraan. Kadib waxay hanatay xilka gudoomiye ku-xigeenka xisbiga talada haya, maadaama uu sidaa dhigayo sharciga xisbiga, ayna ahayd qofka ugu firfircoon ee kasoo jeeda Zanzibar. Si kastaba dad badan ma aysan filaynin in madaxweynihii isbedel doonka ahaa ee geeriyooday John Magufuli uu Samia ka dhigto madaxweyne ku-xigeenka sanadkii 2015. Inkastoo khibrad 15 sano oo heer wasiir ay lahayd baarlamaankana ay ka mid ahayd, hadda dad badan ma aysan u arkaynin in Magufuli uu xulan doono ayada. Markii xisbiga talada haya ee CCM uu doorashada ku guuleystay sanadkii 2015, taa oo ahayd midii ugu adkeyd ee xisbiga uu galay, Samia waxay dhigtay taariikh cusub ama iskoor, waxayna noqotay madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyay ee dumar ah ee Tanzania yeelata. Mid ka mid ah arrimaha wanaagsan ee dadka la soo shaqeeyay ayay ku sheegeen, balse aysan ka warheynin dadka kale, waa xirfadeeda wanaagsan ee dhanka hogaaminta. Xildhibaan ay isu xisbi yihiin oo lagu magacaabo January Makamba wuxuu sheegay in Samia ay ka mid tahay siyaasiyiinta ugu howlkarsan ee uu la soo shaqeeyay. Makamba wuxuu Samia la shaqeynayay laga soo bilaabo 2015 ilaa 2020, wuxuuna wasiir ka yahay xafiiskeeda madaxweyne ku-xigeenka, wuxuuna si toos ah ugu xiran yahay Mama Samia. Dadka si wanaagsan uma arkaan Mama Samia waxay leedahay karti weyn, balse waxay u muuqataa siyaasi iska caadi ah. Runta waxay tahay in ay leedahay awood wanaagsan, ma aha arrin la iiga warramayo ee waa mid aan anigu khibrad u leeyahay, ayuu yiri. Mama Samia waxaa lagu tilmaamay in ay tahay qof go'aamada gaara kadib wadatashi ay la sameyso dadka kale, mana aha qofka go'aan iska qaata ama dadka ku qasba waxa ay doonayso. Samia waxaa sidoo kale lagu tilmaamay siyaasi geesi ah oo aan ka gaban waxay aaminsan tahay. Sida la sheegayo, sababaha ay ku mutaysatay xilka madaxweynaha waxay ahayd heerkeeda waxbarasho iyo geesinimadaasi, maadaama Magufuli yahay qof aaminsan degdega iyo in si dhaqso ah wax kasta lagu dhameeyo, xitaa haddii dadka niyadoodu ay dhaawacayso. Hadda CCM waxay u baahan yihiin qof runta u sheega oo aan ka baqanaynin, halkii la keeni lahaa qof iska aqbalaya wixii uu Magufuli dhahaba. Mama Samia waxay saygeeda Hafid Amir isguursadeen sanadkii 1978, waxayna isu dhaleen 4 canug. Wiilkeeda ugu caansan Wanu waxa uu xubin ka tirsan baarlamaanka ka yahay Tanzania. Samia waxay maamulka iyo maareynta ka kala baratay jaamacadaha Manchester ee Britain iyo Zumbe oo ku taala Tanzania. Markii ugu horeysay ee dowladda u shaqeysay waxay ahayd sanadkii 1977. Kadib sare ayay u sii kacday, waxayna noqotay sarkaal dhanka qorsheynta qaabilsan muddadii u dhaxeysay 1987 ilaa 1988. Sidoo kale waxay noqotay madaxa barnaamijyada hay'adda cuntada adduunka WFP ee Zanzibar 1998 ilaa 1999. Samia waxay sheegtay in guusha ay gaartay aysan u fududeen sida ay u muuqato. Safarkeygii dhanka siyaasadda wuxuu ahaa mid dheer oo guuleystay. Ma fududa in aad qaadato mas'uuliyadda qoyskaaga, aadna ku sii socoto nolol siyaasadeed iyadoo ay ku dheer yihiin waxbarasho iyo mas'uuliyado kale, ayay tiri Mama Samia.